السلام عليكم قرابة وسلامتهن من البقى جوكتان كسو دواada beertayda and I think the last video aan soo saaray hal isbuuc camal ku soo wareegata umaleena meeshaan inta hadda aan fadhiyo waxaan ku beeray at least a lot of onions waxaan beeray 3 basal oo kala nooc aan beeray hadal badan aan igu dilay so anyways I wanted to quickly inaan ka bilaabo videogaanite basashaasay sida hadartan u soo baxayso ka bacdi the last couple days waxaan kala beeray mana duubin because the same process waaye laakiin waxaan beeray ubaxyaal badan aan beeray kuwaasay tan mid hadartan mirihiisa saak arko inuu soo baxeen wallahi afar beri no I think that was like 3 days ago ka soo wareegtay anyways waan soo tusaya gurigaanaytan waa ogtihiin ma sha Allah wuu igu cusub yahay waxyaalo badan aan kala warwareejinooya aniga ogtahay channelkiga beertayda ku saabsan tahay soo man tusay anoo ma arkino rag dhigaay anoo maraayad meel saaray waxaas ma rabay inaan tuso laakiin waxaan rabay inaan tuso insha Allah sida aan guriga meesh markaan deganahay space inaan aan ubaxyaal iyo qudaar iyo waxyaalahaas inaan space u sameeysan karno insha Allah so a lot of videos soo socdaan especially marka barafka iga dhamaado so qaraab wari aan igu dilin let's get started meeshaan aan yar socona waxaa har niga bilaabaya fadhiga hadda aad jooga ilaahay wuxuu igu barakeeyay darashadahaanayta waaweyn ma sha Allah maanta dhan aan fadhiyay barf markuu naga dhalaalana iftiinkoodana si fiican u soo bixi doona insha Allah so let's get started meeshaan naga bilaabeena okay qaraabo albaabka marka laga soo galo fadhiga jaa isha ka qabanayo waa dhex taagan tahabo soo meeshaanaytan wali waxa badan aan rabaa inaan ka bedelo halkan dhulkaanayta waa xasuusin amaleena isbuuci hore dhulkan fadhiyay markaas meeshaan miraha ku beeray ma sha Allah ka bacdi miiskaana soo gatay ani walaalka yar meeshaanayta ku quraacana 10 ku akhrisano and waa xasuusin amaleena meeshaas waxa taala birmadow oo 3 level ahead oo aan markii oo aan basashi beeray xagga aan saaray marka so anyways xagga ma ka sii helin sida u taalo ilmo badan oo habartay ahna waa imaadaan meeshaan soo markii oo aan miraha meeshaas ku beeray waxa ka cabsad darashada intay ku ordayaan in ay qudaartii iyo waxyaasha ayagoo mirihii soo baxayaan inay halayaan soo dhac waa la orday lama shooyi meeshaan soo dhigay so kor gurigu wuxuu leeyahay 3 qol uu leeyahay qolkan ana iska leh wali boxyaala ka buuxaan qolkan waxaan ka bilaabay xafiis ahaan darashadaas inta fariisto iftiinka si fiican ay qabanayo horta darashada sidaan u kala wareejinayo kasto qorraxda kasta ma dhaaftarta anyways korna waa u qaadi karaa laakiin dariskayga xagga ilfuur mana la is yaqaan wali so anyways horta nalka aan shido qolkan sidaan uu egyahay this is meeshii basash igu bixaysay can you believe waana tanaahay basashi qaraabo basashi aan beeray waxay ahayd 3 kala nooc ahayd taagyaashaas ku kar akaysiin magacaashooda si u kala yihiin and mid ugu horeysa oo soo baxada oo wada cagaarka waxay ahayd basashi gaduud ahayd taas waaye so ma sha Allah nalkaanit iftiinkana waxa la dhahay markii ay mirihi yar yihiin iftiinka inay zaid ugu dhawaadaan la rabaa so marka koow ay soo baxayeen waxa arkay kwaan amal hada niis dhaweyn karo ayagoo cadcadaan oo rafaad inuu hayst amal umaleysida carrada ay ka soo dhex baxayeen so iftiinka ma arkino halkan sidaan amal ku ahaa kasto ka yar fogay laakiin geedahaanaytana waxa jiraan nal kala nooc kan dhulka yaala amal meel kala isticmaali doona waan tusi doona insha Allah miiskaanaytana wuxuu leeyahay nalal ka soo laalaado filooyinkooda guriga hore u iga yaala kuwaanayta waaye so kuwana waxa laga rabay in aan meeshaanayta ka soo laalaadiyo laakiin qalabkooda maqan ina soo raadiyo waaye so ma sha Allah basashaanayta way soo bixaysaa basasha gaduud ugu soo horbaxday waana aragteen oo maleena marka miraha ku shubaa in the last video linkiga hoos aan igu soo qoraya mirihi ma xisaabinaynin waa la ku dadaadinay basashu waxay ku fiican tahay la dhahay sidaan marka iskugu dhaweysid markay mirihi ay yar yihiin arkaysid inay soo yar weynaanayaan easily
waa kala bixbixin kartaa waa kala fogfogeyn kartaa so qudaaro kale waxaa jiraan oo iska fiican hal mar inay meeshii aa ku beerto ay ku koraan ilaa banaanka aa ku beeraysid laakiin basasha saas camal ma aha mirahooda zaaid ay u yaryar yihiin so hal mar hadaa meel isku keeno dhac meeshaas kala wadi karaa halkaana ujeediin waxaa ku jirto ubaxyaal oo 3 beri ka hor aan soo beeray sawiradiisina waan soo saari doonaa insha Allah boxki ku calaamadeysta waxay yihiin bajaatan 3 beri ka yar mise 2 beri ku soo baxdo kan labaadna mirihiisaan ugu soo baxayaan mirahaanayta waxaa la dhahay carraya lagu daboolin laakiin carrada ku riix qooyal la dhahay so ma sha Allah sidaana loo ogyahay ayagoo badanna ka bacda soo beer doona insha Allah so ayagana waqtigooda iska qaadanayaan he korkaanayta waxaan ku beeray ubaxyaal kale to kale nooce ayagana nalalka sidaan ugu shidaaya so qaraab ma sha Allah halkaana lagu barakeysan yahay qolkaanaytan shaqadiisa wali way yar badan tahay insha Allah so I have more things I need to do so next step hadartan sheekhu iga qaboobay iftiinkaanayta soo jeclaa fadhigan ku soo laabta hadartan so waxaan rabaa hadartan inaan basashi mirihi oo kabsar caleenta inaan hadda beero okay qaraabo so mirahaanayta hadartan for buckets kiwakana waan ii sheegay amaleen in my last couple of videos inshallah and I hope ina suuqa agali kartiin mise Target hadii American aad digantiin meel ay ka heli kartiin dukaamo waxaa jiraan packageyadaanayta oo miro kasta oo nooc kasta aad soo gadatid badanaa waxay leeyihiin instructions gadaal lagu soo qorayaa so coriander waan isoo dhaweynaa sawirna waan iga soo qaadaa sida daartiin videoga inaa stop dhahdeen oo mirahaanaytan horta waxaas igu soo dhacday marka mirahaanayta aan soo saaray aan isoo dhaweeyo mirahaanayta marka aan soo daadinaya waxa igu soo dhacday coriander aan suuq aan ka soo gadanayno asagoo diyaar aan rabno inaan isticmaalno inaan karsano jikada marka ku jirno aan markano suugada aan karsanayno whatever it is aan karsanaysiin ma ogtiin horta coriander laftarkiisa mise cilantro in sidaan jaa u eg tahaybo hadeertaan haddii oo aad suuqa aad mid ka soo gadatay oo caag iyo whatever kugu jiro hadduu sidaan u egyahay qaraabo you already have the seeds ma isku tijaabisiin inaad samaysan kartiin I hope you can try but anyways kabsar caleenta aanayta ujeedin sidaana u ekaan doonta I hope insha Allah and packetka aan hadeertaan ka hadlayna waa kana so waxay qaadan doontaa la dhahay 60 to 90 days of harvest so mirahaanayta maanta markaan bilaabo waxay qaadanaysaa 60 to 90 beri heightka qudaartaanayta ilaa dhererka inta la ekaanayso and then depthna waxay ka hadlaysaa how deep oo carrada markaan gelinayo sababtaan carradan inta uga soo saarayo waxay taa markii aan miraha aan sidaan ugu shishubo haddii aan rabin inaan god qodin waaya miraha markaan sidaan ugu shishubo carradan inta markaan ku daboolo at least 1/4 of a depth inay noqoto insha Allah so anyways and then instruction kan waxa lagu soo qoraya especially reer Mareykan haddii aan nahay aniga waxaan ku jiraa reer buluuga ahay waxa meelaha ugu qabowsan Mareykan so anyways waxa lagu dhahay waqtiyada fiican aad saari kartiin mirahaanayta aad beerin kartiin so waxa la dhahay mirahaanayta maanta markaan beero 14 to 21 days sida hadeertaan basasha aan soo tusay soo bixbixi doonta kasto yiris cagaar arkayna markaas